سدالينينو حليي سمير يديستيو هل دور سمكو عانو سدالينينو حليي سمير يديستيو هل دور سمكو عانو سوليو سناقيو هذا سلال ميدين كارا برعسوني هيديو هذا ساحليو شيخ سيمي كارا هرقيسو هذا عالم كسوري كارا سوليو سناقيو هذا سلال ميدين كارا برعسوني هيديو هذا ساحليو شيخ سيمي كارا هرقيسو هذا عالم كسوري كارا هذا نبض سوقي كارا هذا خالق كسيحي كارا أنبونا سلانيو صعب كوكو ديغني سدالينينو حليي سمير يديستيو هل دور سمكو عانو سدالينينو حليي سمير يديستيو هل دور سمكو عانو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داوداش قيمة هي قدرت بدنا كوسا داود ورئيس كوبان الله يلا بشير محمد جامع يسوق كسر لابتي عاصمة جمهورية الصومال المجال هرقيسة. بشير كوسا دو برامج كحق ورن المجال بريستول. وحدوني بشير إن سؤال كاوي ديو وحد كسر لابتي أن جمهورية عاصمة جمهورية الصومال المجال هرقيسة دوان إن مدعياتكم مغنيد إن بالواحد مغورتا وحيابيه كوسوتشي تيم إن مركز تكتم مجال هرقيسة. بشير كوسا دو aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdi xarago sidaad mar kastaba aad ugu adeegto bulshada haddaan ku soo noqdo su'aashaadii magaaladii Hargeysa ayaad wax iga weydiisay oo aan imika in muddo fasax ugu maqnaa run ahaantii magaalada Hargeysa aad bay u ballaaratay waxay ka mid tahay magaalooyinka caasimadaha aadka u koraya ayay ka mid tahay maaragtay waxyaabo badan baa iska bedelay Hargeysa 5 sano ee aan kasoo maqnaa Hargeysa aad bay u dhisantay xag dhaqaale iyo dhinac kastaba waxaad moodaa in ay Hargeysa aad u dhismayso dadka waxaad moodaa in ay maaragtay aad u soo jeedaan sidii ay wadanka wax uga qabsan lahaayeen tartamo badan baa jira oo xagga baayaca mushtarka oo kale xagga iskuulada oo kale xagga jaamacaadka oo kale dhinac kastaba waxaad moodaa in ay tartan badan ku jiro oo ay dadkuna aad u foojigan yihiin sidii ay magaalada Hargeysa ay uga dhigi lahaayeen ay la jaan qaadi lahayd caasimadaha adduunka bashir waxa kale oo doonayaan ku weydiiyo bal waxaad ka warartaa xagga caafimaadka markaad eegto bal iyadana bal waxaan doonayaa inaad warbixin naga siiso adigoo dhawaan booqday cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa run ahaantii cusbitaalka weyn waan booqday dhowr goor baan tagay waxaan ku soo arkay wallahi dhibaato weyn baa taalay cusbitaalka Hargeysa hadday noqoto xag nadaafadeed iyo hadday noqoto xag daryeelba labadaasba aad baan uga dayrinayaa waayo waxaad moodaa in aanay shaqaalaha xitaa jooga inaanay u jajabnayn shaqada ay qabanayaan waxaad arkaysaa habeenkii oo kale oo lagu leeyahay dhakhaatiirtu maba joogaan oo aad arkayso beeshid maanta oo kale la soo qalay oo aad arkayso cid inaanu haysan cid caawisa habeenkii marka laga reebo neersta yar iyo maaragtay caruur yar oo Red Cross wax ku soo bartay mooyaane marka run ahaantii wuxuu u baahay attention badan buu u baahay dhakhtarka weyn Hargeysa su'aasha kale doonayna ku weydiiyo Bashir waxaad ka qayb gashay arday fara badan oo ka qalin jabisay jaamacadaha kamid ah magaalada Hargeysa bal iyadana xagga jaamacadaha markaad u kurgashay ardayda wax ku barata rajadooda yidilado shaqooyin mustaqbal sideeday ahayd run ahaantii ardaydu aad bay wax u bartaan hadday noqoto xag iskuul iyo xag jaamacadeedba balse markay jaamacadda dhameeyaan waxa dhacda inankii inaanu ama inantii ayna shaqo helin marka waxaad moodaa laftoodu inay hadda wax soo fahmayaan oo in ay iyagu inta isku tagaan ay wax samaystaan ama ha noqoto warshad yar ama baayac mushtari ha noqoto oo ay xitaa waxa dhacda in ay ka shaqeeyaan meelihii caadiga ah ee localka ah in ay ka shaqeeyaan waayo haddii ay intaas soo arday 860 baa ka qalin jabiyay jaamacadda Hargeysa 20 dhaweyd 860 kaas
dawladda xafiis ma wada siin karto shaqana uma haysan leedahay markaa uma haysan marka de waa inay iyagu isku dayaan in ay wax helaan inay shaqooyin abuuraan waxay doonto haatee shaqooyin abuuraan oo isku dayaan maaragtay iyagu inay wax la yimaadaan marka way dhacdaayo imika waabay sameeyaan dhalinyartu oo taasna waxay ka badbaadinaysaa tahriibtii faraha badnayd aan kaa dhex gala Bashiir oo markaa dhalinyarta ardayda jaamacadaha ka baxday xaggii tahriibka iyo yiddiladii inay qurbaha u soo yaacaan sidee bay ka ahayd imika markii hore iyo imika markaas barbar dhigto xaggii tahriibka inay waddanka ka niyad jabaan oo qurbaha ay moodaan in ay maaragtay nolol wanaagsan ay ka door bidaan run ahaantii waxaa jira dhalinyar aad u fara badan oo dalka aamintay waxna kala soo baxa waddanka hadday noqoto xagga dawladda oo kale ay xafiisyada way ka shaqeeyaan maxay ahayday xagga baayac mushtarka way wadaan marka waxaad moodaa inay tii ahayd in dee dadku tahriibaan ama ay dee meel kale eegaan inay dalkoogii hadda aamineen baad moodaa oo ay dhalinyartu maaragtay waddanka hadda u soo jeedaan dawladduna kolley xaggooga waxa ay ka filayaan in ay iyaguna dee caawiyaan hadday noqoto xag shaqo abuuris iyo dhinac kastaba waa tahay waxaad la kulantay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Saylici ayaad la kulantay maxaad ka wada hadasheen Bashiirow guud ahaan waddanka ayaan ka wada hadalay oo waxaan ka wada hadalay oo kale maaragtay sidii maaragtay tahriibta oo kale ay dhalinyarta loo dhiirigelin lahaa waxaan ka wada hadalay in dhalinyarta jaamacadda ka soo baxda oo kale sidii dee waxbarasho loo siin lahaa ama waxbarasho sare oo dee bilaasha ama maaragtay ay shaqooyin loogu abuuri lahaa marka run ahaantii wuxuu isna ii sheegay in loo baahan yahay dadkiina qurbuhu inaad waddanka maal gashataan taasuu mar kastaba igu dhiirigelinaya isaguna waa tahay markaa guntii gabagabada baan Bashiir ku jirnaa waraysigana maxaad u soo jeedin lahayd talo iyo tusaale qurba joogta jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool cariga Ingiriiska si ay waddankooda u maal gashadaan oo ay dadkooda iyo dalkoodaba wax uga qabtaan run ahaantii waxaad isbedel weyn baa dhacay waddankii hadday noqoto xag maalgashi iyo maaragtay imika waa kuwan adduunkii oo dhan inagu soo dhiiranayaan waa tan dekedeennii berbera qandaraas fiican aynu lagu qaatay marka waxaa loo baahan yahay in ay soo noqdaan sidaa ay hay-adihii iyo dadkii kaleba inoo aamineen inaynu innaguna haddaynu qurba joognahay aynu u aamino waddankeenna oo aynu maal gashanno oo aynu maaragtay waxyaabo badan kala soo baxno marka xitaa waxaa loo baahan yahay dhalinyarta waxbaratay ee jaamacadaha ka soo baxay halkan medicine hadday noqoto iyo hadday noqoto dhinacyada kaleba ama injineernimo ha noqoto in ay maaragtay xagga u shaqo tagaan waayo halkaas waxay ka heli karaan shaqooyin fara badan oo ay halkan aanay ka heli karin waad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Bashiir Maxamed Jaamac oo nin aqoon-yahana oo degan magaalada Bristol oo waraysi kula yeelay xog waraysi kooban aan kula yeelay magaalada Bristol Bashiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa codsiga adiga aqbashay inaan waraysigaasi ka qaado cabdi aad baad u mahadsantahay adiguna sida martiqaadkaadii samaysay aad baan u soo maadaama tahay nin firfircoon oo maaragtay mar kastaba bulshada u adeega